بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ونكسن دغيستيال meel kasta oo codkaygu idinka soo gaadhay kuna soo dhawaada barnaamij suugaaneedkii ka iman jiray rugta ururinta dhaqanka iyo suugaanta ee qalinsoor أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ugu horreysiinayna waan u maleynayaa maanta si aynu ugu ballansanayn gabaygii aan ku magacaabay qaaruun de waa ninkii qur-aanka ku jiri jireen qasaska qur-aanka ee xilligii fircawn ka midka ahaa ee maalqabeenka ahaa isagii maalkiisiiba dhulka lala gooyey halkaasi waxaynu uga jeednaa ninka odayga ahaa la yidhaahdo maraykan ee maanta dunidii ku taagleeya oo yidhaahdo dunida ciddii anigay raacdana waan barwaaqaynaya ciddii iga soo horjeesatana risqaan ka xidhayaa waan daba qabatanaya waxaa sheega marka waxaa jirtay inteena waaweyn iyo inta wax akhridaaba sidaynu ogsoonahay qarnigii 20aad waxaa jiray laba quwadood oo waaweyn oo dunida ku hirdama oo la oran jiray Warsaw iyo NATO si kala hadaynu dhigno quwaddii reer bariga iyo quwaddii reer galbeedka ama quwaddii shuuciga iyo quwaddii antigoosadka ahayd labadaas ay ahaayeen labada quwadood baa dunida ku amar ku taagleen jiray sidaa markaa waxa dhici jirtay duwalkan yaryar ee kale qoroba waxay ku hoos jirtay labada quwadood mid kamid ah marka malax iska xigmad ilaahay maslaxad baa ku jirtay baan isleeyahay markii day waayagnimada waxayna tustay ninna ma suuro galaynin markaa inuu qolyaha yaryar kale ku tunto markii 1990kii ay ka baxday quwaddii Itixaad Sofiyeed reer barigu ay meeshii ka baxday duntay waxa soo baxay in Mareykan la yiraahdo dunidii baarqab ka noqday adduunyada markaa wixii amarkiisa qaadan waayay waa ku tuntay caalam islaam baa u badnaataan markaa deesan taariikhda ku hayno meelo badan buu soo dumiyay oo Ciraaq ka mid ahaydo waxayna xilligaa jirtay qadaafigii waa laayo khayr laawa ahaa ay isagana bariga oran jireen diyaarad baad naga soo ridayo oo diyaaradii loo kari oo baad bay ka doonayeen oran jireen intaas oo nin baad magtiisa keenaysa hawlo noocaas iska aloosnaa gabagan yarsaas uu ku soo dhashay qormoon gabaygu kala leeyihiyo khayr loo dhigo qormoon gabaygu kala leeyihiyo khayr loo dhigo maqoomana qur'aankiyo sunnaha inuu khilaafay qabiil laguba ay xaqa lagu quwayay qabiil laguma ay xaqa lagu quwayay qanjidhkiyo waxaa laga dhilaa qolofta cabede qadaan lagu gumoobiyo rag baaqaad ku daydayay mar hadduu hunguuri ka qabsado qiimihii dhimayey qamamuurta maansada qashaa uma quushucaale qamamuurta maansada qashaa uma quushucaale qorigaaga oo madhan dagaalooma qoor luloye markaas ahaanka qada dhigtee qaladku ku muuqdo qunyar waxaa la qeexa halkay qodaxdu tallaaye qunyar waxaa la qeexa halkay qodaxdu tallaaye qarnigii hore tegay haddaan qunuga fallodo quwada adduunyada ka jiray loogu jiray qadhe quruumahan yaryari waa kuwii qaybsanaan jiray wuxuu qaar boqol ugu xidhnaa qolada waaweyne wuxuu qaar boqol ugu xidhnaa qolada waaweyne dagaalkii qabooba intii laysu qorinayay inay labaadu kala qoofayeen qaybka ma ogeyni qarba buuso badan baa yimi oo naga qarsoonaaye
qarban buu soo badan baa yimi oo naga qarsoonaye qalladii ku dhacay shuucigiiyo qaranjabkii gaadhay wuxuu qooqay qoladii galbeed qaabka waalidaye qoqobii ka dhece ruush intuu qaytay waa hore qoqobii ka dhece ruush intuu qaytay waa hore qasabbay ku maamulahayaan qaradii bariye adiguba qiyaasoo ciddaan qadan amarkooda qaraar waxay ku gaadheen inaan quri ka noolaane qaraar waxay ku gaadheen inaan quri ka noolaane gantaa lahaa qamamee suntiyo qayaya baruuda haddii aanay qumbuulada ka biqin qabarka dulaya qudhiisaaba laga yaabayaa inay ku quustaane qashinkama duwaana woorsadii qarada weynayde qandiyada ku riday dowladii ugu qadhadhay qabriba ku duumay kubayo qaar kaloo badane qabribaa ku duumay kuba-iyo qaar kaloo badane markuu qamar sanaaciga dhigtiyo qalabka miraya qabanqaabadii hore wuxuu qaadu odhan waayey qarqarsiga sidii loogu xidhay qaashma soo rogane qarqaarsiga sidii loogu xidhay qaashma soo rogane inkastuu mid qaafila yahay oon qaxar ka weynanin qalaadiyo qumaatiba hadduu qanti bixin waayo maantana qadaafay rabaan inay qardoofaane maantana qadaafay rabaan inay qardoofane qaramadan midoobe khalqiga lagu qiyameeyo kolba qaranka lagu duulayaa lagu qorsheeyay qol maraykan iyo waa xafiis lagu quudhadhaaye qol maraykan iyo waa xafiis lagu quudhadhaye muslimiintu qowlkuma laho maaha qangadhe qamamuurta gaaladu markay nagu qaaladayso kolba waxaa markhaati u qabsadaa hurka qoodhaahe kolba waxaa markhaati u qabsadaa hurka qoodhaahe qodob badan gumaysigu qoray quruxda loo yeelay qarbiyo yuhuud kuma xukumo odayga qaruune qursiga miskiin diidayaa lagu qiisasaaye qursiga miskiin diidayaa lagu qiisasaaye haddaan carab khilaaf lagu sallidin lama qabantene qaza iyo afqano madfaca lagu qasalayo qosol buu u dhaacay buush markay qarashkii dhibeene maqadariyo kayrkii waxaan quriska riixayne haddii aanu allaha qaadirkii qabanin shaydaanka haddii aanu allaha qaadirkii qabanin shaydaanka qaylada ciraaq waxaa ku xigi qaybihii hadhay waa hagaag bal haddii aynu soo qadana tix kale oo ka mid ah suugaanta aynu maanta halkan uga baahinay dhegeystayaasha gabayga diin ayaynu soo qaban lahayn oo aad ka tirisay abwaan axmed colaad digaal axmed qorane duulaankii lagu qaaday dalkaasi ciraaq sanadkii 2003 bal hadda faahfaahin kooban dhegeystayaasha haddaad ka siiso gabaygan iyo magaca diin sida uu kula baxay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد مولد قبل قاعد وديسي وتحل سوها وحانو أها مالنتي بقدار لقبصدي أنا جو عاد مرويسن
oo gaaladii oo dhibil lisanayso oo kaba meel duminayso oo dadkii ku tumanayso oo meyd ku quban yahay wadooyinka oo ayaa waxaa ii yimi ilaahay ha u naxariistee nin la oran jiray beldhowle ka dhintay oo injineer maxamed ismaaciil cawaale la oran jiray waanu saaxiib ahayn dabeetana anoo gidaar iska fadhiya ayuu gu yidhi maanta maxaa ku helay dabeetana wixii markaa gidaarka i fadhiisiiyey markaa uurkayga shidayey baan markaa gabaygan uu ka dhashay waa sidaad gabay ku arki doontaa halqabsiga gabaygana waa injineer maxamed ismaaciil cawaale marka waxaa is weydiinayey waa tanoo caalamlislaam xukaan ma laha tamar ma laha midnimo ma laha talow xaaladeedu sida bay noqonaysaa gobolba gobol baa lagaga duulayaa de beri horaa laynaga shaqaysto inta ummadda islaamka la qaybiyey oo jeesiyar laga dhigay oo xuduud loo kala sameeyey oo qolo walba qolada ku xigta la yidhi cadowgaa gaar ka hayo taagnow war ummadda dhan ee xariijintii gumaysigu dhigay weli gaar ka haysa ka warran weliba ku faanaysa dawaata weydana kuweyt iyo sacuudi arabiya dhulkan baa lagaga soo duulay shacabkaa loo tumayey dabeeto nimankan mujrimiinta maanta caalam islam xukuma badankoodana de waa taqaaniino waa niman dee iska bara saab ah oo nimankaa gaalahay meesha dhigteen dabeed waxaan xusuustay murugadii dartiid waxaa la yidhi baalaleyda inta hilibka cunta iyo habar dugaaga ayaa shiray waxay yidhaahdeen farinta kolba xoolodad leeyahay aynu boobayno ee laynagu dilayo ama laynagu dhaawacayo hilib agteenna iska yaalo gurguuranayoon cidina lahayn baa jiree kaamaynu iska cunno cidbayna weydiinayn waxaa la yidhi berigii hore siday dee xikmadda ku socoto bahalkan diinka la yidhaahdo ayaa qoloftan sare ee adagay ku qafileen ma lahaan jirin hilib iska socduu ahaa bahalkaasay u tasheen markaa inay hilibkaa iska cunaan dabeeto shimbir ka mida shimbirihii meesha ku shirayey ayaa warsheekootay oo diinkiiba u tagto waxay tidhi wardiinow in laguu shiray oo gacasarka la doonayay in lagu qadeeyo ma ka war haysaabay ku tidhi wuu yidhi meeshii laygu shiray ilaahay ma joogin haabay tidhi isagaa igu filane faraa ka qaad bay tidhi yuu diinkii yidhi dabeetana casarkii iyadoo dugaaggii soo diyaar garoobay iyo haadii iyo wixii gorgoradii iyo baqayayaashii iyo diyaar loo yahay baaka maanta lagu qadeeyey ayuunbaa ilaahay qafiskan adag ee aynu naqaanee maanta aan waxba kalayaaba jirin ayuunbaa ilaahay ku dahaaray dabeetana dugaaggii markay soo yaaceen bay dee qoloftii adkay ilkaa ku dhufteen dabeeto waxay halkaa isu kay sawirtay min kastoo maanta dee caalam islaam loo tashaday oo gaal iyo gaal raacba u tashadeen haddana in ilaahay joogo magacu horta sidaasi ayuu ku soo baxay injineer cawaalow intaan cidhifka loo laabin injineer cawaalow intaan cidhifka loo laabin ee dunidu caynkaa tahee lagu cawaynayo cadceeddii dhacdaba waayaheed waa cusboon yahay cadceeddii dhacdaba waayaheed waa cusboon yahay in cabbaara waataan murtida caymanka u xidhaye afka waxaan cafuufaba hadduu soo carcooryaye adig iyo cismaan baantixaa ku cayimaya adig iyo cismaan baantixaa ku cayimayaaye cuntadan ilaawiyo naftaan calal iska u diiday macabaniya waayahan cakiran calowga uurkayga adbaciilka waad ila qabtaa cawasanahay adbaciilka waad ila qabtaa cawasanahay ee cimrigaygu maantuu 50 cagacagaynayo iyo maalintaan cidhibsaday eencanu ka weynaaday waanba maalmuhu ugu cuslaa cirirka meeraay waa maalmuhu ugu cuslaa cirirka meeraayee cishaday khilaafadu duntay ee calanka loo duubay camankiyo sidii loogu dhacay gaalka cagihiisa caddadaan yarayn baa nasrigu naga cilalaay
deedaan yarayn baa nasrigu naga cilaan laayee jeejniya sidii loo cunay iyo cadanyadii gaadhay cadhadii afqaan baan qabay iyo ciilkii falastiin ee maantana dagaalkii ciraaq caabaq nagu reebiye maantana dagaalkii ciraaq caabaq nagu reebiye muslinka cusaadehe kufrigu kuma cayaareenee ilaahay hadday ka cabsato oo diinta la cisayo cirka uu ahaa ka soo degi lahaa ciidankii badare cirka waxa ka soo degi lahaa ciidankii badare culimada kolay tahay dadka cudurka buuxaaye culimada kolay tahay dadka cudurka buuxaaye cibaadada qubuurtiyo xabaal calama loo taago caqiidada saliimka markii caada laga doortay cuqubooyin badan baa ka yimi ama markadiye curcurkii baqdaad iyo hubkii laga cabsoonaaye cidna laguma dilin gaaladii cidina may waabin waa waru caqligu diidayoon caafimaad qabin waa waru caqligu diidayoon caafimaad qabinee 20 ka badan dawlada carabta sheegtaa ee cidi kama hagaagteen haddii ay calan wadaagaanee wase niman kursiga caabudoon caafimaad qabine waa niman kursiga caabudoon ceeb ka dhidhiinee cisyaan iyo khilaaf baysu galay dilay codkoodii cidna dhaafi maaye barri buu cuni waraabuye dibigii case iyo kii caddaa camalkiisa umaaha dibigii case iyo kii caddaa camalkiisa umaaha tukihii cambaaraha lahaa soo rogaal celiyee mar hadduu ciraaq ku habsaday oo ku cadda loolaayo imikuu yuhuudkii cantaray si cayilayaay imikuu yuhuudkii cantaray si cayilayaaye kuwa ciirta laaciyo intay caama talinayso ee madaxdu caynkaa tahay ee cadowgu maalaayo ee caadaqaatuhu ku jiro cunaya laaluushka boqorrada cigaalka leh haddaan ciiska lagu boobin ama aanu allaha caadilkii goynin cidhibtooda sida nacabka la ysaga hesho iyo ciidamada naato wacalaacal tima yeelatiyo cadar kaliileede waa calaacal tima yeelatiyo cadar kaliileede waxay safiintuuga sii cidaa roobka curanaya mar haddaanay cimilay gasho iyo daar calqada haysan carruurtiyo nafteeday malaa u cabsanaysaa carruurtiyo nafteeday malaa u cabsanaysaaye diinkuba cad buu bari ahaa meel cidla ayaalle casarkii dugaaguu tashaday suucuna fiidka wax la yidhi casiiskuu baryo caawiyoo da'day wax la yidhi casiiskuu baryo caawiyoo dadaye wuxuu gaalku kaaga cabsadaa cududa weeyaanee mar hadday hub lagu ciilbaxo iyo xoog camiran weyday calaamalislaam sow sidaan ku cabbiray maha calaamalislaam sow sidaan ku cayimay maha calaamalislaam sow sidaan ku cayimay maha